Maamulka degmada Barawe ayaa maanta olole nadaafadeed ka wada magaalxeebta Barawe ee caasimadda u ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Nadaafadan ayaa ku soo aadaysa xilli ay magaaladu Barawe ay shirar kala duwan ay ka dhacaysaa sidii loo soo celin lahaa bilicda magaalada Barawe. Ugu horreyn, goobtaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka magaalxeebta Barawe ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Faadimo Cusmaan Gaawi. Hadaladeeda waxay ka mid ahaayeen gudoomiyaha degmada Umar Sheekh Cabdi Abdiraxmaan, gudoomiyaha ururka dhalinyarada, gudoomiyaha haweenka, sidoo kale ururka dhalinyarada, isku duwaha degmada Barawe, wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, faydoorka degmada oo insha Allah shaqadiisa ay tahay maanta aan ku dhex jirno nadaafadda tan ka urur haween ahaan. Waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bacdu salaam, alxamdulilah, ilaahay mahad iskale oo noo suurtageliyay inaan caafimaad aan iskugu imaano, aan kusoo shaqo tagno. Mahaddaas ilaaha iskale. Bacdayne waxaan leenahay waxaan bilacda aan u istaagnay degmada, gudoomiyaha ugu horeeya oo garab taagan sida magaalada bilacdeeda loo soo celin lahaayo, oo maadaama ay waqti doorasho nagu soo foolle wafdi kusoo foolle degmada, waxaan loo istaagay iskaa wax u qabso isxilqaan wax la yiraahdaan ku shaqeyna insha Allahu taala. maanta waxay ka bilaawday insha Allah, waxaan rajaynaynaa inay joogto noo ahaa doonto haddii ilaahay idmo. jadwalkaas gudoomiyaha noo deji doono haddii ilaahay idmo insha Allahu. waxaan u baaqayaa hay'adaha bixiya qalabada oo nadaafadda, waxaan ka codsanaynaa in degmada Barawe ay noola soo gaaraan qalabka nadaafadda si bilacda magaalada iyo caafimaadka loo ilaaliyo, maadaama nadaafaddu waa nasul iimaan. marka inaan dadaalno insha Allahu taala tan ka maamul ahaan anagoo isku duuban oo aan ku midaysana inaan nadaafadda degmada aan u istaagno. waxaan rajaynaynaa in hay'adaha qalabkan bixiya caafimaadka, sidoo kale qalabka gaargacanada iyo iskoobiyaasha iyo farkeetooyinka insha Allah tan ka maamul ahaan waa haysan alas waxaan u baahannahay inaan wax kale nagu soo daraan rabi lahayn insha Allahu. waxaan rajaynayaa inay naga soo gaaraan. waxaan salaamayaa maamulka degmada iyo shacabka dadweynaha ku nool degmada Barawe. waxaan leeyahay ilaahay adin xafido, u istaaga deegaankiina waaye, bilacda u istaaga, horumarkiisa u istaaga, amnigiisa u istaaga, isku duubnidiina u istaaga insha Allahu. waxaan leenahay mahadiha idinka gaartaan. leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. maasha Allah, saaki halkan waxaan ugu soo dheelmanay olole nadaafadeed oo isxilqaan ah oo ugu horeeya gudoomiyaha degmada, gudoomiyaha ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda, nala jooga naga soo qayb qaatay gudoomiyaha faydoorka. maasha Allah, waxaan usoo istaagnay iskaa wax u qabso anigoo wada dhan. waxaana diyaar u nahay insha Allah haddii kadib oo dalkeena wax u qabano insha Allah, oo nadaafadda caafimaadka meel walba aan ka shaqeyno insha Allah, oo shacabka wixii dhib oo keenayan aan ka hortagno aan diyaar u nahay insha Allah. inta kale dowladda waxaan ka codsanaynaa hay'adaha inay nooga caawiyaan qalabka oo nadaafadda, qalabka caafimaadka kulli insha Allah. dhammaan waa idin salaam. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan maamulka degmada Barawe, ugu horeyn gudoomiyaha degmada Barawe iyo ku-xigeenkiisa, iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada, ku-xigeenadiisa, gudoomiyaha ururka haweenka. maanta halkan waxaa ugu soo banaanbaxnay nadaafadda degmada Barawe, inaan bilicda magaalada inaan soo bixino. waxaan halkan wax ka codsanaynaa jaaliyadaha meelaha oo jiraan dibadaha iyo meel walba ay joogaan. waxaan ka codsanaynaa inay garab nagu siiyaan qalabka oo nadaafadda iyo barnaamijyadaas. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillaahi, halkan waxaan ka salaamayaa gudoomiyaha degmada, xogeyaha ururka dhalinyarada, gudoomiyaha agaasimaha faydoorka, muxuu ahay gudoomiyaha barakacayaasha, gudoomiyaha ururka haweenka, tiimka ururka haweenka oo dhammaan haweenka oo hadda nadaafadan si weyn ugu qayb qaatay, oo maanta meelahan joogaan u jeedin nadaafadda socoto. dhammaan iyo shacabkii wixii ka qayb qaatay halkan ka salaamayaa. waa mahadsantihiin ayaa leh mar koowaad. waxaan leeyahay nadaafadda waa nadaafad muxuu ahay ummadda Soomaaliyeed dhan ka dhaxayso ee degmada Barawe. cid walba oo Soomaaliyeed oo guri leh, baabuur, jidkaas cid walba oo Soomaaliyeed oo magaaladan degan waxaa loogu baaqayaa inay nadaafadda dhowraan, nadaafadda ka shaqeeyaan. nin walba gurigiisa hortiisa bulaacadaha iyo wasaqda ka qaado, sida hadda maamulka degmada iyo muxuu ahay laamaha dhalinyarada, ururka haweenka, ururka dhalinyarada iyo kulli ugu qayb qaateen, iyo shacabka Soomaaliyeed ugu qayb qaateen in looga qayb
waa iska wuxuu qabso cid walba oo Soomaaliyeed oo baraawo degan waxa loo baahan yahay inay ka qayb qaataan iska wuxuu qabso hool oo hiin la soo garab istaagaan haddii ay tahay biyacab haddii ay tahay fargeetooyin haddii tahay qashin xaaq intaba in laga qayb qaato oo shaqo guud waay ma shaqo hal nin ka leeyahay ama qof leedahay ma waa shaqo guud oo ummadda Soomaaliyeed ee degmada baraawo dhan ay ka dhaxayso waxaan ugu baaqaynaa shacabweynaha reer baraawo oo dhan waxaan ugu baaqaynaa inay muxuu ahay suubiyaan nadaafadaas si wanaagsan ugu qayb qaataan cid walba ay gurigeeda iyo meel walba ay joogto inay qayb qaataan waxaan halkan ka salaameynaa madaxda koonfur galbeed sida madaxweyne Cabdicasiis Laftigaran gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya sida xildhibaanada wasiirada gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha degmada Baraawe iyo dhammaan maamulka degmada Baraawe iyo xildhibaanada iyo muxuu ahay ururka haweenka ururka dhalinyarada iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed waa inaan gacnahaas qabsanaa oo nadaafada si wanaagsan ugu shaqeynaa maanta kaliya waa maalin walba khamiis walba ama isniin walba ama talaado walba mar aan suubsano oo hal mar aan xaafadba mar aan tagno oo kasaan ugu qayb qaadano wuu ku maasiyaan gudoomiyaha degmada Baraawe ahna duqa magaalada sida wanaagsan oo hadda waxaan soo agaasimay annagan iyo kulligan wada shaqeyn soo u keenay wuu ku maasan yahay waxaan ugu bogaadin gudoomiyaha mar walba inaan halkan ka wada shaqeyno xaafad walba todobada xaafadood ee degmada Baraawe waxa uu baaqaynaa in cid walba gurigeeda ay nadiifisaa cid gurigeeda nadiifiyaysa ayada taqaan annaga dawlad baa soo jeesana markaan dawladda naqana suuqa dadka jooga dukaanleyda waxaan ugu baaqaynaa dukaan walba hortiisa oo qashin ku guro asaga ayaa ku ganacsado asaga ayaa wax ka gala dad oo shaqaalo nadaafada imaanaya jawaan ugu shub ayaa ka qaada laakiin ma aqbalayno inta wasaq lagu daarana careless laga naqana waa dan guud waa haloo wada midooba waa maasantiin kusoo dhawaad waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada Baraawe ahna duqa magaalada degmada Baraawe mudane gudoomiye kusoo dhawaad ugu dambeyn kulankan waxaa soo xiray gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi Cumar Shafaana ayaa sheegay sidii loo soo celin lahaa bidicda magaalada Baraawe wixii maanta laga bilaaway ganacsatada ay digniin culus u bixiyay الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ugu horreyn waxaan salaamayaa maamulka qaybihiisa kala duwan ayadoo la kala qaadqaadeyni ururkii dhalinyarada ururka haweenka isku duwaha gomana dhanka haweenka bahda caafimaadka ee faydoorka degmada barakacyaasha iyo dhammaan macnaha ururka hooyooyinka halbowlaha dhalinyarada waxaa idin leeyahay runtii maanta waxaan qabanay shaqo wanaagsan shaqo fiican oo sumcad weyn ay u tahay dadka deegaanka degan laakiin maxaa laydinka rabaa in mar walba loo istaago qamiis waxaan noo balanaa in shaqadan loo istaago oo degmada waxaan kaloo markan rabaa inaan mana meeshaan ugu baaqo shacabweynaha degmada ku dhaqan shacabweynaha waxaan leeyahay gurigaaga iska ilaali qashinkiis banaanka ku soo shubin maalinta gurigaaga maanta wixii ka dambeeyo gurigaaga qashin banaankiis lagu arko gurigaaga ganaax uu mutirsan doonaa waayo maanta waa lagu nadiifiyay gurigaaga la nadiifinayaa wadadaada la nadiifinayaa laakiin beri haddii lagugu imaado wadada ayadoo wasaqaysan ama xaafadaada ilbaabka hortiis wasaqaysan lagugu arko ganaaxad mutirsan doonta wixii sharciga lagu waafajinaa waxaa kaloo marka manaan rabaa ganacsatada suuqa ganacsatooy maanta nadaafada la idinku hayaa beri nadaafadiin wixii ka dambeeyo adaa lagaaga fadhiyaa inaa manaa hortaada nadaafsatid wejiga dukaankaaga nadaafsatid wejiga baqaarkaaga nadaafsatid oo aad qaadid oo aad lacag ku bixidid dad aad wacatid meesha aad ka qaadid haddii laakiin maalin walbo qashinkaaga in dad kaa qaada isleedahay maanta wixii ka dambe lagaama qaada adaa iska qaadayo waxaan kaloo ugu digaynaa dadka oo maanaa buuraha qashanka ay ku soo shubaan ay isleeyihiin qashamaanta intay suuq ka soo qaadaan ay keenaan magaalada gudaheeda ay keenaan ay ku shubaan ayagana ugu digaynaa cid alla ciddii lagu arko maanta wixii ka dambeedo in qashinka suuqa ka soo qaado oo maanaa magaalada gudaheeda ku shubo talaabo sharci waafaqsana laga qaadaa digniin waay waa ku digaynaa hadda digniin waay waa haysataa digniintaas wixii saacaan ka dambeeyo digniintaas haddaa u hogaansam weedi sharciga waana lagu waafajin doonaa waxaan kaloo rabaa marka dadka gudoomiyaasha xaafadahan rabaa dhammaan gudoomiyaasha xaafadaha waxaa lagaaga digayaa xaafadda mas-uul ka tahay haddaa qashan lagu arko xilkaagaad ku weynaysaa xaragaad mutaysan doontaa waxaa lagaaga fadhiyaa shaqada waajibaadka ku saaran oo xaafadaada kaaga saaran mas-uuliyadda kaaga saaran inaad gudatid waxaan kaloo kaaga digaynaa xaafadaada caligaroob haddii lagu arko bilicda soo celin weyse adaa mana lagaaga fadhiyaa xilkaagaad ku weyi doontaa wixii maanta ka dambeeyo isla xisaabtan waay mas-uul noqo shacab noqo waa lagula xisaabtamaa
ganacsatada mar labaad waxaa la idinka rabaa ganacsatooy inaad u istaagtaan bilicda magaalada qof walba magaalada asaa horumarsiin doono dadka ururka hooyooyinka iyo ururka dhalinyarada iyo dadka shacab weynaha isxilqaanka maanta ay ku wadaan in magaaladooda ku nadiifiyaan waa inaa lagaa helaa taakuleynta ku nadiifin lahaa magaalada ugu nadiifin lahaa iyo macnaha la idinka rabaa waxaan kaloo idinka rabnaa suuqa dhammaan intii magaalada degan xaafadaha qaybahooda kala duwan iyo wadooyinka wixii saacan ka dambeeya waxaad free u haysataan guryihiin inaad buraashan kartaan dayactiran kartaan cidna ku shilin idinku imaan doonin ciddii ku shilin idinku imaada annagaa la xisaabtamayna laakiin waxaa laga rabaa muddadan bishaan oo 20 cisho ayaa idin qabanaynaa magaalada bilicda inaad soo noqdaan ilaa ay muddo oo 20 ilaa ay bil ayaa idin siinaynaa maadaama deegaankan uu karmanaan Baraawo ee caasimadii Koonfur Galbeed oo rasmi ay tahay oo rabto in doorasho oo ay ka hirgasho magaalo ilxumadeed annaga ma qaadan karno waxaa lagaaga fadhiyaa gurigaaga buraasho lacag lagaama rabo wadadaada dhiso kushin lagaama rabo laakiin waxaa laga rabaa amarka inaad u hoggaansami karto amarka u hoggaansama maanta wixii ka dambeeya waxaa la idinkaaga fadhiyaa gurigiin inaad buraashan kartaan qashinka iska qaadi kartaan wixii oo qashina iska dheereysaan war salaada ayaa laga horumarsiiyey iimaanka war dadka inay wax fahmaan nadaafatu nusul iimaanka ma sahlano war qofka hadduu iimaan qabin salaadiis ma ansaxmayso haddaa iimaanka qashankaaga agtaada yaalo war goormee adi naftirkaa iimaan aad leedahay waxaan rabnaa marka heebaha dhammaan heebaha magaalada waxaan ugu digaynaa cid alla ciddii isku daydo qashan ay ku shubtana ayadana talaabaan ka qaadinaa waa bilicdii magaalada kali heebaha magaalada waa meesha annaga aan ku faano waa heebaha waayo haddaad isku daydo heebaha inaad wasakh aa keentid aad cuuriyaamisid war adi beri intay u socotaa haddaa xeebtii adi magaalada aa u degan tahay xeebtii iska soo wasaqaysid ayadana digniin waayo waa qaadanaysaa waa inaad sharciga u hoggaansantaa wixii maanta ka dambeeya waxaa noo balan ah qamiisna in ololada nadaafadda magaalada laga qaado maalin ilaahay keena cid alla ciddii oo waxaan kale oo rabnaa inaan u sheegno madaxa faydhoorka shaqadaada waaye cid alla ciddii shaqadaada kaa hortaagan adigaa noo soo sheegaya laakiin shaqadaada waa waajibaad kaa saaran in hawshaada qabsatid nadaafadda dadka kala shaqaysid wixii oo oo dhibaato ay kugu wada aqabad ah maamulka degmada la soo wadaay laakiin wixii maanta saacan ka dambeeyo waxaa lagaa rabaa in oo shaqada qabsatid 7 xaafadna waxaan samaynaynaa in aan samayno loogo oo baalooyin oo goobo qashin lagu talgalay 7 birkada hadda magaalada ka socota dhismihiis anaga aan wadno waana gabagabiya inoo maraysaa midna wuxuu ku yaalaa kabaanka hilibku ku yaalaa oo meesha hoolaha lagu qalo mid wuxuu ku yaalaa 7 xaafad oo loo kala qaybiyay qof walba qashinka waxaa laga rabaa inuu foornadaas aad geysid qashinka aad ku shubtid lagaa gubo intaas sameeyna qashin meel lagu shubayo saacan wixii ka dambe ma jiraan foorna loo sameeyo foornadaas aad geenay marka waxaa idinka rabnaa inaad sharciga u hoggaansanataan awaamiirta qaadataan wixii saacan ka dambeeyno wada shaqayntii rasmiga ah in magaalada ka bilaabato waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si kastaba hase ahaatee nadaafadan ayaa ku soo aadaysa xilli ay magaaladu Baraawe isku diyaarinaysaa doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee magaalada Baraawe Cabduqaadir Maxamed Faaqi warbaahinta TV-ga Sam TV Soomaaliya Baraawe gobolka Shabeellaha Hoose.